aydo qooni waxa Soomaali waxaan Soomaaliland ahayn ayaa daddoonaya maanta inay qasbaan Soomaali nagu soo diraan wuxuu yahay kii shalay loo diiday inuu xafiis furtay ee ka socday UN-ta markay adkaysan kari waayeen ee arkeen sidii tobankii May inuu abaabulay ee dawladdu isku abaabusheen dawladdu ma abaabulinay waa tii madaxweynaha Banaadir Xasan Sheekh waa kii adkaysan kari waayay ee caadifad baa qaaday caadifad ninka maanta nala Soomaaliland caadifad baa qaaday ma ninkaas Soomaali waddankiisa hagaajin karaa Ilaahay ku dhaariyay waxa weeye yani wuxuu ku leeyahay ana iskuulada ku sameeyay amaanada tan ku heshiid wax leeyahay iskuul hebel iyo iskuul anaga idin sameeynay inaga inoo martay ahayn haddana ilaa hadda wuxuu ku naaloonayaa inuu xukunkiisa la geeyo gabar haddana mid baa idin sheegaya war dibadda waxaanu ka adkaan karnaa waxa weeye gudaheena hagaajina weeye gudaheena haddaynu hagaajino maalintii aynu la dagaalanay Maxamed Siyaad Bare dawladda Soomaaliya maalay ka xoog weyn ma jirin ingiriis Mareykan inta way itraafsaneed waxaanu ka adkaan waxa midnimada ka adkaan iyo niyad baa ka adkaan hadda waxa weeye cadow qulaleen waxa weeye madaxweynaha Banaadir maanta cadowgeenu uu badan yahay waa fari active cadowgeenu waxaanu active u yahay halkan baa signal u ka heliyaa oo leeyahay waanu soo soconaayo dadka been baanu ku wadnayo beentii baan ka soo gurinaayo oo been baan ku wadnay sarun baan ku wadnay beentii baan ka soo gurinaayo masuuga beelay waaya halkan baynu ku dhimanaa halkan baynu ku dhawanaa halkan baynu ku dhimanaa insha Allah ta'ala ana keena waa la ilaahay waliga dhicmaayo kaadiga ku dhacay kaadiga ku dhacay la toosin kara way gaalay mus isku yihiin kaasan waliga la toosinay ilaa iska badana calan yeelan maaya walaal waxa yeelada waxa yeeshay waxa weeye niyad ummadda niyadii baa ka xumaatay geejadii baa ka xumaatay durbaankii uu kulmiye akhi laga cirkaan subag ka aan ka reeyay maa'ida si nabi ciise ayaa la waayay marka waxa leeyahay madaxweynaha Banaadir uu tagay jariibina walaal subhanahu wa ta'ala